السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك ولا لا يا صوماليات أدبنا دي السلام يا ملك الدنيا دي كتشوكتان مركز لكم سير هذا خيار مطبخ حب العين وحنا دي كم حب علينا يا فريمها الدعاء يدي رجلين تسوق شره الله هيدا كعبال مريو أدب ما تنتين وحيت هيدي رجلين إن وحكى ما تسود وين يا أصحاب تصوب وقتها شنالك إن كعصب سود هذا أدب ما تنتين إن kusoo biirteen asxaabtii hore noola joogtay hays martiyeeni waxaan idin xasuusinayaa inaad channelka subscribe gareysaan jeliska ama gambaleelka taabataan si notification-ku idin soo galo markasta oo wax soo dhigno fiidiyoda like gareeya hadii aad jabiyaan siina share gareeya oo la wadaaga ehelkiina asxaabtiina cid kasta oo jeceshihiin oo danaynaysaan in ka faa'iido aad baad mahadsantihiin. marka inta hadii laga soo gudbo maanta waxa sameeynaya roodi baan sameeynaya roodidaasi waxa weeyaan waa roodi macaan oo jilicsan oo yar iyo weynba la wada cuni karayo waxayna ka kooban tahay inta hor taala marka inta aan bilaabin waxaan idin kula dardaarmayaa inaad iska daysaan roodiyaha laga soo iibsanayo dukaanada inta aniga ila joogtay Hargeysa oo is ognahay roodida waxaan ka soo qaadanaa dukaanada iyo meelaha aan ka soo iibsanaa marka sida inoo isticmaalnaa runtii waa si aad iyo aad u qaab daran warshada lagu sameynayo oo aanad ogeyn kulliba Soomaaliya hadan nahay waan iska yaran nibcaysanahay marka warshadii oo iyadu iska nibcaysan gaariga lagu soo qaadiyay oo lagu dhex daadinayo roodidii ninkii soo qaadiyay marka gaariga watay soo qaadiyay jawaan halku doona yaalay oo iska cajiib ayaa lagu soo qaadaya dukaankii baa la dhigayaa qof kasta uu taabanaya oo uu ka dooranaya imkana xanuunka la sheegayo ilaahay haynaga badbaadiyo hayna baal mariyo innaka iyo ummadana Maxamed iyo cid kasta la jecelnahayba marka qof kasta uu taabanaya de basarkeedina ma isticmaalna ama gloves inta la xidho wax kuma qaadno marka gurihiina ku sameystaan ilaahay roodida iyo wax kasta oo banaanka loo doonan jirayba marka hadii aan bilaabo haligaada dan hadalkeed ku dheereeyna halka waxay ugu jiraan 2 koob iyo bar daqiiqa halkaana waxay ugu jirtaa 3 malqaacadood oo maajiriina halka wada arkaysaa waa koobka nuski oo sare oo caana halka waxay ugu jiraan waa biyo oo marka waa inta ka dhiman koobkan caanaha weeyaan halka waxay ugu jirtaa waa 5 malqaacadood oo waaweyn oo sonkor ah halkaana waxay ugu jiraan 2 xabbo oo beed ah halkaana waxay ugu jirtaa baking bay ugu jiraan halkaana waxay ugu jirtaa milix yar marka hadii aan bilaabo wax ku shubaya halka milixdii baan ku shubayaa koobkaas wax kale ku shubaya biyihii sonkortii wax kale ku shubayaa waa fixisa weeyaan waa is marka iyadana ku shubayaa 2 malqaacadood oo malqaacadaan isticmaalaya ama si malqaacadina cuntada ku geedan baad ku daraysaa oo khamiira as ay soo walaaqaya كيلو دولية إلا 3 دقائق دون هاي لحظة مرحبا بكم كنا سيعني يقول إيجا لا يرسانين أيها بكون حشوبيات دقيقة أنا سيدي حكا لنا
marka 3 daqiiqo kadib waxaan ku shubayaa halkaas baan ku shubay sonkortii baa yara fadhiisatay marka waxaan kaga dhaqaaqanayaa caanaha marka waxaan ku shubayaa caanihii baan ku shubayaa wax kale ku darayaa beedkii 2 xabo beed ay soo haray oo macarintii iyo ay soo haray macarintii daqiiqada macarinta xoogaa waxaan dhexda u gelinayaa daqiiqada ku shubayaa markaas waxaan ku shubayaa imkana daqiiqada ku shubayaa markaana waan isku walaaqayaa marka aan isku walaaqo waxaan samayn doonaa markaa dhulkan ka xashiyaa mar walba waxaan jeclahay in dhulka si fiican aan u xashi karo ku rugto markaa caaga yar wuu igu yaraanaya saan doonayo uguma boganayo uguma xashi karo labadeeda gacmood baan dhulka keenay ogahay waa jilicsan tahay sidaas baana fiican in roodhiga ay u jilicsanaato daqiiq dambe inay ku gelisaa ma fiicno intana waxay iga reebaysaa yaray ku dhowdhowayso macarintiiba iyadu ii taalay taasana imkana iyadana aan bogoogi macarintii weeyaan waxaa aan dhexda u geliyay iyadu maana ku xashi doona insha allah si ay si fiican ugu dhex gasho jilicsan tahay waxaan markaa markasta la xasuusinayaa markaa inaana daqiiqda kolba ku kordhin bayna kaa adkaanin daqiiqda markaad xashaysa hadday adkaato hadhow toole roodhidaasina way adkaanaysaa markaa mahiibadaas waan ku ridayaa markaa waxay oolaysaa muddo saacad oolaysaa saacad kadib insha allah inoo haato markaa aan kasoo markaa saacadii kadib ayaan kasoo ridayaa madiibada markaan kasoo saaray markaan kasoo riday madiibadii saacad kadib sidaas bay noqotay waxaan isku yara celinayaa si uu naqaska uga yara baxo markaa waxaan sameynaya waan kuuskuusayaa
markaa waxay noqotay 9 kuus bay noqotay u yara kala weyn yihiin oo kuleyba gacanteedu qiyaasta saxda ah ma sameynayso mashiinkaas waxaan doonayaa inaan qiyaasta ku saxdo roodhida markaas si aan u isku goobinayno roodhidana ugu dhegdhegin wax sameynaya marka bacda yar baan dusha ka saaray marka wax sameyn doonaa miisaankana wada saaraya si ay tiro buuxda igu noqoto roodhida hadhoonta isku leekaato wada qurux badnaato 150 marka ilaa 150 umaan u baahanahay 250 kaas wax badan isma dheera okay waa 150 sidaas baan insha Allah inta yar baa imka dheereed waan ka wada jaraya mid kasta inta dheer si hadhow toolo roodhi yar wada leeg oo qurux badan igu soo baxdo tanina waa 450 wakaas tanna intaas baa dheereed iyadana waan ka jaray daqiiqda yar baan ku shubay raaxadii ugu soo sakayso kalana soo baxaya marka waan yara la waxayaa marka sidaas u looxo marka saa u looxo marka aan soo laabayaa dhinaca ka soo laabayaa saas baan soo duubayaa okay saas baan iskugu qaban doonaa afkeedana saas baan iskugu qabanayaa inaan isku qanjeerinayo kale marka saxnigii ofinka ku gelinayay aan soo diyaarsaday aluminium baan hoosta mariyay si ayna aad iiga guban oo ololka badan ay uga hayso sababta shooladan isticmaalaya waxa weeyaan waa tiisan gaasta markaana waan soo laabayaa halkaas baan kasoo bilaabayaa markaana hareerihii baan sidoo kale iskaga qanjeerinayaa ama iskaga qabanayaa si ay isku qabsato afkeed baan wax samayn doonaa saas baan u yara marayaa mar kale markaana waxaan saarayaa haddana saxniga sagaalkii xabadoo saas baan usoo duubay oo sidaas bay noqotay waxaan daynayaa hadduu ilaahay idhaaho muddo 30 daqiiqa ayaan daynayaa afku baan markaa kaga xirayaa bacya ka saaray labadooda waxaan daynayaa hadduu ilaahay idhaahdo 30 daqiiqo markaas 30 daqiiqo waxaan doonayaa inay soo yara kacdo isku yara dhawaato isku dhigto 30 daqiiqo kadib markaa insha Allah isku soo noqon doonaa
samayn doonaa insha Allah way soo yara faxday soo burburnaatay sidaad arkaysaan markaa bacdiina waan ka qaadi doonaa halkaa waxaan ku riday xabad beeda waan ku riday halkana biyo bay ugu jiraan biyaha baan ku darayaa beedkii markaa biyihii ayaan isku yara walaaqay waxaan samayn doonaa waxaan marinayaa beedka roodhida markaa dusheeda halka waxay ku jirtaa in yar oo sinsiina bay ku jirtaa markaas sinta yar waxaan korka kaga daadinayaa saa idin muuqata roodhida ayaan korka kaga daadinayaa marka beedkii mariyo waxaan gelinayaa ofinka markaa sidaa ugu dhameeyey waxay ku jiri doontaa hadduu ilaahay idhaahdo ilaa meelaha 25 ilaa 30 daqiiqo 25 ilaa 30 daqiiqo ku jiri doontaa ofinkana waa sii shiday 5 daqiiqo sii shidnaa oo uu sii kululaaday markaan kasoo saareen insha Allah isla arki doonaa 30 daqiiqo kadib ofinka kor iyo hoos baan ku shidaya roodhidii markaa sidaas bay soo baxday markaan ofinkii kasoo saaray markaa aad bay u fiican markaa sidaas bay soo baxday amalna si fiican u arkaysaan shareeca u yara kulushahay laakiinse oo gacantaan aad weyn kareen inaad dareemisa ma malaynayaa sida u digayso roodhiduna waa ina marka gacantaada sida ugu qabato ay saa usoo boodayso taas waxaad dareemi kartaa shaygaasi inuu jilicsan yahay marka sidaa loo celiyo ee uu sidaa usoo boodo yacni waa shay jileec ama soft dhexdiisana weyn eegi doonaa insha Allah oo waan dilaacin markaa saas bay soo wada baxday quruxdooda arkaysaa hadii markaa maxaa la dhahdaa dhexdeedana kala gooyo si aad ila aragtaan taas bay soo baxday waxaad iska dhex marsan kartaa jam haddaad u baahan tahay haddii aad wax dhex gashanayso cuntoon oo kalena waad dhex gashan kartaa maasha Allah waa roodhidaa jilicsan leh sideedaas baad doonto shaah yar baad iskaga dhuuqi kartaa
saas aad arkaysaan maasha allah. Haddii markaa aad shaah oo kale iskaga dhuuqdo sideedaas bay kaaga degaysaa maasha allah. Ama jaameer iska marsato haddii aad wax kala dhex gashanaysana dee wanaagsan oo dhexdeeda waa taa dhexdeeduna saas bay soo baxaysaa. haddii markaa maxaa la dhahdaa shaah oo kale baad iskaga dhuuqdo sideedaas bay kaaga degaysaa maasha allah. waxaan rajaynayaa inaad wuxuun ka faa'iideen casharkaasina oo weliba muhiim idiin noqdo inta Hargeysa joogta. aad baan idin salaamayaa. caawa roodhideedii cashadu waxaan doonaba aan ku cuno laakiin saas baa aniga diyaar igu tahay. habeen kastana saasaan u samaystaa. cuntooyinka banaankuna ma fiicna haba yaraateen waqtigan la joogo hadii roodhi tahay hadday oo kalaba tahay. guryihiina wax aliya waxaad ku samaysan kartaan buu ku samaysta. inta sida gaarka ula socota channelkaygan insha Allah waxaan ku dadaali doonaa inaan idin soo geliyo cuntooyin xiiso leh oo hadday noqoto nusoo saacaha ciyaalada loo samaynayo iyo dadka guriga soo fadhiistay haddii waalidka tahay iyo hadday xaajiga tahay iyo hadday cid walba kasta fadhiistay guriga ay tahay. aad baad mahadsantihiin. salaadii maghrib baa taagan. waxaan idin xasuusinayaa intiina maanta na soo booqatay horta marka koowaad ku soo dhawaada channelka. ha ismartiyeynina subscribe taa nagala bakhaylina fiidiyoyada like gareeya sii share gareeya oo la wadaaga ehelkiina iyo asxaabtiina.